maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray walaac ay qabeen musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada sanada 2021 iyo xubnaha mucaaradka ee doonaya isbedel dhinaca hoggaanka ah inuu dhaco. walaaca ugu badan oo ay qabaan ayaa waxa uu yahay guddiga doorashooyinka ay soo magacaabeen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweynayaasha maamulada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed, kuwaas oo ay sheegeen in lagu daray xubno badan oo kamid ah hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. qoraal isdaba joog ah ayay soo saareen musharaxiinta madaxweynaha, xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta u xaqaltaagaya inay xiriir ka qabtaan Soomaaliya. ha yeeshee ma jirto cid dhag u siisay hadalkooda, inkastoo uusan jirin tallaabo dhinaca doorashooyinka Soomaaliya ah oo bilowday. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kana mid ah musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka digay cawaaqib xumo uu sheegay inay ka dhalan karto haddii la dhageysan waayo diidmada ay muujiyeen guddiyada doorashooyinka Soomaaliya. waxa laga rabo waxa waa inay guddigan bedesho qodobka 9 iyo 10 ee heshiiskii lagu heshiiyay dowlad goboleedyada ayada ay ku heshiiyeen dowladda federaalka ay fuliso dad dhexdhexaad oo integrity leh oo dadkan u wada siman inay keentaan laga rabaa. hadday diiday ku adkaysato anaga ka yeeli mayno doorashaas, diyaarna uma nihin doorasho madaxiis laga noqonayo. waxaan u maleynaa madaxweynaha iyo wiilka taliyaha nabadgelyada waxa isaga qaldan dowlad goboleedyadii ay baacsanayeen iyo dowladda nationalka federaalka isaga qaldan. waliba dowlad goboleedyadan faraajalka hadda iska dhismaayay Hirshabelle iyo Galmudug iyo oo dadku hadda ordunkiisku oo bilaaw iska ah dadku waxa laga yaabaa inay ka laabteen. shacabka Soomaaliyeed iyo xubnaha beesha caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya ayaa isha wax ay ku hayaan doorashooyinka Soomaaliya, iyagoo eegaya sidii ay u dhici karaan doorashooyin loo wada dhan yahay oo ay ka wada qayb qaataan mucaarad iyo muxaafid intaba. haddaba muxuu xalka noqon karaa mar haddii mucaaradka ay qaadaceen guddiga doorashooyinka ee magacaaban filla Soomaaliya ka aamusan tahay? waxaa su'aashaas ka jawaabaya siyaasi Jaamac Xasan Khaliif oo ah falanqeeyo siyaasadeed. marka waxaan anigu oran lahaa ku talin lahaa shalay iyo daraba waa soo marnay in maamul jira uu soo magacaabo guddiga doorashada 2016 bay dhacday 2012 bay dhacday mar walbana qayladaas taagneed. qaylada beeshubkeeda iyo maxsuulkeeduna wuxuu ku dhamaadaa inta badan qofka meesha jooga yaa inta badan gacanta sare leh. waa home court advantage oo qofka hadii laba kooxood guri ku ciyaarayaan ciyaaro kooxda guriga lagu ciyaarayo inta badan qaylo badan oo taageero badan waana wax caadi ah. marka anigu waxaan oran lahaa intii ay tagi lahayd in cid kale loo dacwado cadow ah. sanad walba marka la gaaro xilliga kala guurka oo ay soo dhawaadaan doorashooyinka dalka ayaa waxaa bilowda khilaafyo siyaasadeed oo u dhaxeeya hoggaanka dalka oo doonaya in mar kale dib loo doorto iyo siyaasiyiinta isbedel doonka ah, waxaana ugu dambeyn ku dhamaataa in la qabto doorashooyin ay ka soo baxaan natiijooyin isdiidan balse lagu wada shaqeeyo.